waxaan helnay warar sheegaya in banaanbax ay qabanqaabinayaan dowladda Soomaaliya looga soo horjeedo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed cadawgii ummadan oo isugu jira argagixiso iyo dhiig miirato iyo waxyaabaha qowleysatada hadda lagu tilmaami kara oo markaas mar walba ummadan Soomaaliya dhibaato la daba taagnay taas oo aad ogtihiin in argagixisada gacan la siinayay muddo aad u fog waxaad ogtihiin magaaladan Muqdisho masaajidadii ugu horeeyay xilligii maxaakiimta ayaa waxaa lagu dilay masaajid dhexdiis qof sujuudaya ayaa lagu dilay ilaa maantadaana dhibaatadii la daba taagan yahay maanta oo marka dowladda shisheeye kuwa u adeegayo oo argagixisada garab siinayo qarash iyo dhaqaalana ka soo qaatay sidii aan horeba u sheegnay waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan mar labaad ugu celino baalka haram caska la yiraahdo ama libaaxa aan dhahnaa waahin raagiya markuu baahan yahay ilaa uu hinraagaas oo wadiyo ilaa marka dambe oo neefka ama geela oo dhuunta uga dhigiyo oo uu dhiiga ka dhuuqo oo markaas uu shib dhaha ka soko marna shib dhihi ma marka kuwii shacabkan Soomaaliyeed mar walba dhiiga ka dhuuqi jiray ayaa hinraagii wili wada mana aqbali karno in shacabka Soomaaliyeed dhiigooda la dhuuqo oo maalin walba ma taqaanaa loo adeegsado gacmo shisheeye waxaad ogtihiin argagixisadu waa kuwa dadka qaraxyada u dhigaya waa kuwa ma taqaanaa shacabka Soomaaliyeed jid iyo jiha u diiday runtii waxaadna ogtihiin anigu muddo dheer ayaan argagixisada la dagaalamayn argagixisaduna waxa ay rabto waxa waaye Soomaaliya inay ka taqallusto dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda kuwa marka dhahaya shacabka Soomaaliyeed jidadka jiifta ma taqaanaa dowladda rida qarash ku bixinaya oo barakacayaashii halkan ma taqaanaa lagu quudinayay oo loo bixiyo Muqdisho barakacayaasha Muqdisho maxaa yeelay Muqdisho barakac ma balahe ma ogtahay waa dadkii banaanka ka yimiday oo lagu daryeelayay ayay isticmaalayaan ay markaas lacag fooq aqli inta siiyaan ay ka soo bixinayaan kaamamka ay ku jireen markaas ay waxay leeyihiin lacagtan qaata dowladana ka hortaga waa dowladda quudinaysa oo soo dhaweysa iyagoo dhidhimo raba halkan ku ma taqaanaa ku soo dhaweysa waxaan marka shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo ay ma taqaanaa kuwa qowleysatada oo missionariska ama calooshoor u shaqeystayaasha lagu tilmaami karo oo wadamada Soomaaliya dowladnimada u diidan ama xurguftu kala dhaxayso raba qarashay ka soo qaadaan inay ma taqaanaa qarannimadii ummadda Soomaaliyeed ku burburiyaan hadiga waxaad ogtahay dad oo sanataro ah oo aan ka soo qayb gelin weligood oo imaaraadka ku nool waa ogtihiin maxay magacyada loo daayrtaa waad garan kartaa hadda adiga Cumar Cabdirashiid hadda haddaan ka soo qaadno sanatar waay halkaan ma yimaado soo ma xusaysan
waxaad og tahay xisbiyada halkan fadhiya oo iyaguna qarashaadka halkaas laga soo dhiibay dowladda imaaraadku ay keentay oo aad u lixaada badan qaybinaya hadda ka horna mataqaanaa aada og tahay in dhibaatooyin fara badan laga mutay oo arrintaas ay dowladda soomaaliya ka hadasho iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba arrimahaasi marka arrimihii waa soo laba lixaadsadeen iyagoo wiiqaaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada waxaadna ogtahay dowladda soomaaliya sidii ay mowqif u qaadatay dhexdhexaadnimo dowladda imaaraadku waxay cadaadin ku saaraysay ay u adeegsanaysay dad aan wadaniyad lahayn oon damiir lahayn ay u adeegsanaysay inay kula dirirto gudaha ku abuurto si iyaga loo dhegansado oo madax banaanida iyo karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay meel uga dhacdo taasna ummadda soomaaliyeedna ma aqbalayso dowladda soomaaliyeedna ma aqbali karta maxaa yeelay dalkan waa dal madax bannaan ummadda soomaaliyeed waa ummad qiyam leh himilo leh aragti qaran leh cadowgeeda iyo mataqaanaa iyo kan u naxaya kala garanaysa marka arrimahaas waa arrimaha la qasbayo waxaana naloo kaga faa'iideysanayaa civil warki iyo dhibaatadii badneed oo aan soo marnay iyo argagixisadan oo annaga ummadda soomaaliyeed mar hore lagu marin habaabiyey oo maxaakiim looga dhigay oo ummaddan lagu dhameeyey waxaasoo dhan ayaa marka laga dhiganayaa wadadaas waaye marka wadadan annagu ifinayno oo aan la aqbali karin idoo argagixisadii weli dagaal lagula jirana in iyagi inta heshiis lala galo si midaysan mataqaanaa ay u wada howlgalaan ayay maanta mareen marka arrintaas waaye arrintaan rabna annaga inaan shacabka uga digno